waxaan salaamayaa ex wasiirad farxiyo oo noogu runtii arrin ka duwan arrimo badan oo sanadaha la isugu yimaado maanta intiinaan halkan joogta shirarka waxaa inta badan loo cilaamiyaa loogu tagaa dadka in lagu baygareeyo ama hay'adi wadato ama qof wato laakiin farxiyo waxay noogu timid inay qarashkeeda transportationkeeda iyo imaanshada u timaado dadka reer Jariiban in ay wacyigelin ugu timaado isdhexgalka bulshada iyo soo dhaweynta doorashada qof iyo cod farxiyo insha Allah ayada noo faahfaahin doonta barnaamijkana ayada noo daadihinaysa waxaan rabaa inaan idin sheego dhamaantiin bulshadu haddii la yiraahdo in lacag la siiyo iyo in kaarar ay qaadanayaan bay isugu imaan karaan waxa meesha ka baxaya damiirkii iyo dadnimadii iyo qofnimadii waxa kaloo la rabaa xilligan hadda la joogo kulamadeena inay bataan waayo dalka waxa ka socda doorashooyinkii one man one vote 1998 markii Puntland la dhisay waxa loo aas-aasay oo raggii Puntland iyo gabdhihii waqtiga galiyay in 3 sano kadib Puntland doorashada asxaabta laga hirgeliyo madaxweyne kasta oo yimaada wuxuu aad u jeclaa ku kaambeyn gareyn jiray dadkana u sheegi jiray in uu maxaan ku iraadaa hirgelin doono dreamka iyo fikirka iyo ballanqaadka dadka reer Puntland aad bay u sugayeen aadna u jeclaayeen aadna u rabeen madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani wuxuu noqday madaxweynihii Ilaahay ku ilhaameeyay ku guuleystay markuu yimid sanadka u horeeya bilaabay in uu barnaamijkaas sidii loo hirgelin lahaa runtii haddii sidii madaxweynayaashii hore oo ay sameyn jireen uu markii sanadka u dambeeya uu damci lahaa inuu bilaabo meesha maanta wax joogeen ma tageen laakiin maanta shacabka oo dhan iyo dadka reer Puntland waxay og yihiin commitment inay ka tahay waayo sanadkiisii u horeeyay ayuu wuxuu bilaabay barnaamijkan maanta waxaa noo jooga 3 degmo oo lagu soo doortay barnaamijka one man one vote waxaa jira gole dawladaha hoose ay leeyihiin oo algabal la yiraahdo marka ay ka soo qayb galaan gudoomiyaashii lagu doortay annagoo kulliga gudoomiyaal wada waxay naga dhexdeeda ka mudan yihiin ixtiraam iyo respect gaar markay hadlayaan macna gaar leeyihiin hadalka qaabka loogu soo dhaweeyo waa ka duwan yihiin ayaguna way dareemaan annaguna waa dareennaa waxaan rabnaa Jariiban in gudoomiyaha laga dooran doono oo dambe uu noqdo gudoomiye shacabka iyo bulshada ay u hayaan ixtiraam gaar oo ku aadan codkooda inay ku doorteen anigu gudoomiyihii degmada ahay maalinkii codka la ii foodgareynayay intiinaan fadhinayna cod kuma lahayn in la ii foodgareeyo xildhibaano 21 oo 4.5 lagu qaybsaday baa codayntiidu ay dhex taallay waxaa la rabaa in laga gudbo marka inaad cod yeelataan in gabdhihiina halkaan joogo maalmihii aan xafiiska joogay waxaa laga yaabaa inaad dareemaysaan caqabado badan iyo waxyaabo badan oo inaan qabta ay ahayd laakiin ina voice lahayn codna in lahayn marka aad ku khasbantiin inaad iska kiisugtaan adinkoo aaminsan inaan boosishka iyo xilka aan hayo ahayn midaan xilkiisa gudan karo ama aan u qalmo ama ii dooran lahayd ama inaan joogaba aad raali ka noqoteen waayo qaabkan u shaqeynayo laakiin maanta waxa la rabaa in go'doonka aad ku jirtaan inaad ka baxdaan haddii aad marka shirarka isku imaanshaha maaha mid dhaqaale lagu bixinayo maaha mid qof loogu danaynayo waa codkaagii oo aragtay inaad adigu cod yeelatid qofkana in lagu bariyo ama la kala cod yeelo maaha qofku waa raadiyaa codka inuu yeesho dabcan marka gudoomiyaha raadinayay cid iguma bariyin kala gudoomiyaha noqon kuma oran meel badan baan u maray qofku wuxuu rabaa inuu raadiyo waa muhiim waxaan rabaa marka aad waxaan u dheeraaday
barnaamijka marka soo qaado si gaar ah tabta waxaan aad u jeclahay in aan Puntland oo leh maamul dadku ay soo doorteen oo ka shaqeynayo oo wax badan oo hadda wada khaldan ay sakhaldami karin in aan witness ka noqdo aan joogo kursiga anigu maanta aan fadhiyo in aan sii fadhiyo waxa igala qiimo badan in dadku cod intuu yeesho dadku ay codeeyaan muddo 5 sano baa la doortay 5 sano hadda sanadii bar 2 sano ku dhawaad baan joogaa daa macnaheedu waxa weeye kala bar xilligii la doortay iyadoo ahayn baan waxaan diyaar u ahay kursigan qof u doorteen inuu ku soo baxo anu noqon karaa ama qof kale noqon karaa laakiin cidii uu noqoto inay tahay cid aad u keesteen farxiyo marka waxa kulankan ku weelin lahaa oo jeclaa inay yimaadaan ayaguna waa isu group ay ahaayeen gabadha Shukri Cabdi Cali oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Mudug iyo Xaawo Axmed Yuusuf oo xildhibaan federaalka ah kulligood gabdho isbaabulay ahaayeen oo rabay inay degmada u yimaadaan dabcan message-ka u horeeyay ana ula tagay oo gaarsiiyay oo degmada in ay maaragtay ay yimaadaan ku ifaad gareeyay aan ka wada shaqeynay maanta waxay halkaan u joogtaa marka farxiyo isdhexgalka bulshada muxuu yahay marka degmada Jariiban waxa degan dad Soomaali ah qofku deegaan wuxuu ku noqdaa ama deegaan ku noqdaa qabiil kuma noqdo maxaa dhaqaale kuma noqdo wuxuu ku noqdaa qofku deegaanka inuu degan yahay iyo inuu ku dhashay ilmaha deegaankan ku dhashay oo Soomaalida deegaanada ay yiraahdaan kala duwan ka yimaada waa Jariiban laakiin qofka u dhashay qabaa'ilka degan oo ka yimid deegaan kale waxa ka Jariiban qof ku dhashay marka waxa jira yaani wacyigelin u baahan qofka Jariiban ku dhashay oo aan deegaan ahayn oo laga yaabo in la yiraahdo ama waa reer Baydhabo ama la yiraahdo waa reer Afgooye ama la yiraahdo reer Afgooye waxa ahaa aabi iyo hooyadii laakiin asoo waxa ku dhashay Jariiban ku dhashay xuduntiisa waa ku duugan ariga ay maanta rabto walaashay in nagala hadasho waa arimaha ku aadan isdhexgalka bulshada naftaada nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri wax aad naftaada wixii aad la jeclayn gabadha joosh iqabo dhaqaale inay bixiso iyo in maxaan ku raada laakiin waxa ku timid experience badan oo ay soo lahayd waa ay soo shaqaysay galbeed bay golaha deegaanka soo mid noqotaan umaleeyaa Soomaaliya kow galbeed bay ka soo bilowday goolkii soo gudubtay kadibna maamulka dhaxo waxa uu gudubtay haatana iyadoo yaani dadku markii wasiir iyo soo maraan iyo xildhibaan iyo shaqooyinkii inay qabtaan xoogaa qabkooda ka weynaada muraad weyn isku eegaan oo si wax u socdaan laakiin ayadu Jariiban hadda waxa u timid ayadoo rabta inay barnaamijka ay ka hirgeliso rabta dalka iyo shaqadeedii gabdhiga kale ay isu groupka ayeen oo hadda naga maqan wasiirad ku soo dhawow faahfaahinta fikirka iyo ujeedka Jariiban gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Jariiban walaasheen Safiyo oo isku duwaha degmada Jariiban oo naga xanuunsatay dhamaantiin haweenweynaha reer Jariiban oo quruxda iyo qiimaha ay qaayaha leh rag iyo dumarba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib waxa ay sharaf maanta inaan hortiina imaado anoo shacab ah oo awalba bulshada ka soo dhaxbaxay runtii aan inta badan noloshayda aan ku soo shaqeeyay volunteer kana soo shaqeeyay arrimaha bulshada si weyn uga soo shaqeeyay 3 jeer sidoo gudoomiyaha idii sheegay aan goladeegan soo ahaa mar soo noqday kadibna wasiir ka noqday kadibna aan kursigaygii ku soo noqday aan shalka ka tagay aan ku soo noqday waa ii sharaf reer Jariiban waa maalintii markii labaad aan imaado runtii aad u nasiib badan tihiin sababtoo taa waxa haysataan gudoomiye aan idin ka seexan meeshuu joogaba codkiina geeya sidoo hadda idin sheegay gabdhaha team baan ahayn midba meel uu ugu tagay ani waa igu beernayd inaan mar walbaba bulshadeeda u imaado laakiin wax walba baraarujin bay leeyihiin waxaan ku faraxsanahay ilaahay ajra ka siiyo gudoomiyaha ani gooni inuu ii raadiyay xildhibaanadii federaalka ee deegaankan ku abtirsatay Xaawi Yuusuf Axmed inuu gooni u raadiyay gudoomisadii ururka haweenka oo maaragtay
gobolka mudug muxuu ahaa shukri cabdi cali inuu gooni u raadiyey habeenna uu isku kaaya helay annagoo meel fadhina oo midba gooni uu u shukaamiyey runtii waa ninaan seexan ilaahay ha badiyo amsaalkiisa laanno waa yaryihiin dad maaragtay bulshada saa u dhexgala wuxuu arkay baahi badan in rag kaliya ma uu raadine dumarkiina inay maaragtay toodii markaa uu isleeyahay waxay soo kordhin kartaa inuu raadiyo ilaahay kaajisa siiyo anoo marka codkoodii iyo codkaygii iyo codkii dhiirigelintii gudoomiyaha wata inta badan arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeeya intaas anoo codkoodii ku hadlaaya aad u mahadsantihiin gabdhaha reer Jariiban waqtiga dheer oo aad fadhideen iyo xilliga maanta howlaha idin sugaya iyo waqtiga aad siiseen horumarka bulshadiina iyo danta bulshadiina sidoo gudoomiyuhu sheegay wax walba lacag ma aha wax walbana lacag lagu ma helo wax walba waxa lagu helaa qofka ka go'naasho inay ka go'an tahay anigu hadda cidna mushaar iguma siinin cidna dhaqaale iguma siinin waxaan kaashaday walaalkay dhiirigelintiisii iyo taydii iyo tii gabdhaha fikirkoodii baan ku soconaa inaan idinla wadaagno sida maaragtay bulshadiyadu ay wax u noqoto runtii waxaan ka naxsanahay gaabka degmada Jariiban ka jira xagga maaragtay isdhexgal bulsho iyo hadday noqoto dhankii horumarkaba gaabaan maaragtay dareemaya oo space ama wax la dhaho firaaq baan dareemaya waxaan ku faraxsanahay maanta inaad tihiin waxgaradkii gabdhihii reer Jariiban waxay u baahan tahay bulshadeedu inay midoobaan oo bulshadeedu ay u wada fakaraan gabadha nooca aragtay bulshada ka oo ilaahay baa ka dhaliyay cid qabiil doortay ma jirto cid dooratayna inay meesha ku dhalanaysaa ma jirto yaa qaybiya Allah qaybiya ilaahay baa meesha ay ku wada dhaliyay tan ina horumarkeedii rag iyo dumarba loo istaago aan dhamaantiina u istaagtaan oo hadday tahay hooyada liidata hadday tahay tan danyarta hadday tahay ta waxaysata dhammaan ilaahay muxuu yiri hoos isaga arxama korba idin kaga arxamayaa ummad walbana maamulkeeda ayadaa wadata yaa bulshaduna waxay wax ku noqotaa waxa weeye markay aayaheeda ayadu ka taliso oo aayaheedu ka taliso anu meesha aan tagaba bulshadu qolo walba meel bay ka hadashaa qolo dhalinyaro u hadashaa qolo waxay u hadashaa haweenka gaar bay u tahay ani halkaan saa arkaysaan ururkan 2003 baan aasaasay gabar Soomaaliyeed baa ay garab qabatay anoo barakaca oo ama dhaho qaxooti baan dhaho oo ka imid dalka dibadiisa caruur wata deegaanka aan aqoon koonfur baan ku barbaara deegaanka ma aqoonin waa u dhashay alxamdulillaah rabbil caalamiin waa ku dhashay laakiin barbaartiisii waxba kama aqaano waxa ii suurta gashay ilaahay mahadiis inaan gabar Soomaaliyeed helo gabar Soomaaliyeed Soomaalinimo igu dhiirigelinaysa waxa aan ahay imay fiirin qabiil waxaad ogtiin burburkii kadib waxaan dhaxalnay astaan qabiil baan dhaxalnay qolo walba la leeyahay yahay gabadhan yaa qaba hayay tahay baan dhaxalnay beeska aan wax ku soo bartayna qabiilka ma jirin qof walba dadnimadiisa iyo aqoontiisa uu ku meelmariyay oo ku tagay magacayga afraad hooyo iimaan jireen dhijir hooyo awow maxaa la dhahaa baan dhihi jiray taasaan ka ahaa markaan dhoofay baan qabiilka bartay iyo ciidaan u dhashay dalka marka dhiirigelinta maanta ay ku hortaaganahay gabar Soomaaliyeed baa iskale oo awada taqaaniin xarunta xaawo aadan baan la ii tilmaamay waa imid xaawo imay dhihin gabadhan waa reer hebel ima ay dhihin muxuu ahaa xagee ka degan tahay magaaladeed tahay gabar Soomaaliyeed bay igu qaabishay hooyo Soomaaliyeed bay igu qaabishay fursadii aan ka helay u malayn may nolosha qof sidaas oo kale uga heli kara dadkuna de kala nasiib badan xaawo igu qabiil ma aha laakiin isku degaan baana yaa degaan xitaa igu may qiimeeyeen waxay igu qiimeysay inaan gabar Soomaaliyeed u taagan dadaal aan rabo inaan dadaal sameeyo bay igu qaabishay ubadkay waxbarasho ka helay anigii baa shaqo ka helay anigii baa aqoon iyo dhiirigelin ka helay taa marka soo amaano ma aha waa amaano لأنه مركي بايو إمال قشط وإمال قشتة وحي إمال قشتي مد بني آدم ما إمال قشت أو إلى أنت كد أنت إسارا أنت وحوذ كرو أو أحيانا قبر سومالي ماشي تاج أنت أنا ميد بكذا فيرين أن استاجو يقوي السومالي هذا باهن قوي السومالي هذا سئة إن أنت تابيو تيبا مركي يقول يرجلس إن أدي إماله ما أنت كبلوا ذي ما كبلوا ذي يعني حرونتها قلي waxaan u taagnaa ilaa maanta laga bilaabo horta markayga horena de ma aqaan cidii taqaan ubax kacaan baan ahaa xilligii kacaankana ubaxii baan kacaankana
الحمد لله رب العالمين aabahay in badan mudug way yaqaana bilbal boolis waa aabahay goolka mudug ka ahaa araarta dheer waxaan u galayaa waxay tahay inaan cidna qabiil isu godin inta lagaaga badan yahay iyo inta lagaaga yar yahay iyo aysan jirin ee qofka dadnimada ilaahay ku abuuray uu aamino iyo cibaadada ilaahay ina aamino meesha jinsigaaga uu jiro oo gabar ahna waxa u qaban kartaa oo qabatid حرف هدا وحي ريقي كرتid hada meel ku hagi kartid hada wax dhihi kartid nasiib darada jirtaa waxay taa waarun qolobay higsataa gabdhihii maanta siyaasadda nooga horeeyay ama bulshada maarad wax qabadkeeda u horeeyo la soo kicinayay waxay noqotay inay gabarba nin la fiiriyo taana dan nooguma jirto adiga baahidaada ana ka turjumi kara qofka wax u sheegan kartid waa ani hadii uusan qabiil u wadin markaas walaalka waxba u qaban kartaa oo cid kuma dhin waxa u qaban laakiin gabadha Soomaaliyeed amaana ka saaray mas'uuliyadda u qaaday ina wax ugu qabatid waxaad awoodin hadimaba awood ilaahayna kuma saarin inta marka waad aragteen hadda tusaalana looga soo qaataa Qadiijo Maxamed Diiriye 20 kii sano 30 kii sano baan dhaw 5 years ama 5 sano way ahay Soomaalihan arday ka soo bilowda siyaasad waa gabdhaha Soomaaliya loogu hanweeyay hadda qof baa sheegayay 3 gabdhood baanu leenahay bay ka fiiri magaca ku sidataa gabar Soomaaliyeed doorashadii Soomaaliyeed maxay tiri haada weyn waa waxaan kana wada jabiyay kama aanan filayn at least waxaan rabnay waxa ay haysay inay Saacdiyo ugu shubto waxaan filaynay inay codka ay hayaan inay Fawziyo ugu shubaan ya waa gabar anaga waxa shakhsiyadeeda gabarnimo jinsigeedan ku dooranayna ya weena matal gabar meesha joogta gabar waa matali karta meesha ay joogtaan soo idima matali karo socodkiina kuma hadli karo saasoo kaleeto ugu hanweyneen birina ku dayashan sameeynayna taa waxaan qaraarteeda ugu wada gabdhaha jariibanow inaad isdhex gashaan marka isdhex galeysaan waxaan ka wada dhamaan ciyaalka inaad ku barbaarisaan kan waa reer hebel idin dhihine aad dhahdaan wiilkan waa walaalka reer jariibo waa dariskaaga marka ugu horeysa aad leedahay waa dariskaaga because aqra maxaa la isweydiinayaa daris baa la isweydiinayaa samaahan laakiin laguma weydiinayo kana in adeerkaaga laguma dhahayo walaalka ama qabiilkaaga laba jeer u hiili baa lagu yiri markuu dulman yahay oo la dulmayana waa u hiilinaysaa marka asaga wax dulmayana waa ka celinaysaa labada diinta ku masaamaxay laakiin wax ka badan markuu dhiban yahay waa taakuleynaysaa oo uu isaga awla sadaqada asaga kow ka tah reerkay ka tah markaa ka xigana umada kale ina u gargaar saa ina u kale ogaan laakiin markay wax qayb bulsho noqoto oo bulsho aad u dhaaratay maanta xildhibaanada walaalahay waa dhaarsan yihiin bulshay u dhaarteen uma ay dhaaran reer hebel uma ay dhaaran bulshada reer jariiban markii laga soo baxan umada kale reer mudug bay u dhaarteen Soomaali guudna Soomaaliyeed ama Puntland bay tahay waxaa la rabaa marka mas'uuliyadda qof walba intiina mas'uuliyiin baatiin hooyaatiin waxaatiin ayayooyin baatiin gabdho yar oo aan guursan waa ku jira waxaa la rabaa in macallin ay ka dhigtaan wax wanaagsan raad looga tago oo isu gargaar ah oo isu naxariisasho ah oo wax badan rag aan maanta raggeeni waa Ilaahay noo soo hadeeyay inta badan waxa ma qan shaydaan baa wata oo muxuu yahay shaydaankaasi shaydaan qabiila wata ya ina idinku u dajisaan oo aad hoos u waxaysaan oo wixii bulshada ka dhaxeeya maanta gabar baa leedin xildhibaanada idin alxamdulillah waxa leedin gudoomiso urur haween aad dhahdaan cod aad leedin waa hadli kartiin intiinaan hada gudoomiyaha xildhibaanada hada qabsataan oo dhahdaan waxa aan leenahay waxa noogu dhibtaan xildhibaanada noogu dhiiba ama gudoomiso marin noogu dhiiba cidkiina celinaysa ma jirto laakiin yaa iska daysaan in hebelow maanta hadii xisbiyaa loo gudbay waad aragteen Puntland in badan baan ku ragaadnay sida gudoomiyadu idin sheegay 3 sano markay jirsatay Puntland baa ballantu waxay ahayd axdigii markaas in loo gudbo xeelan waxa la dhaho doorasho qof iyo cod ah Puntland u gudubto ma dhicin madaxweyne kasta oo yimaadahi kulay waxa yimaada mar walbaba han kala yimaada Cabdullaahi Yuusuf baa yimid halkii Soomaaliya u gudbay cadda yimid tii kale ku waxaysay faroole noo bilaabatay meel buu soo gaarsiiyay wax ka saba yaani bilow buu sameeyay waa ka waxaysantay Cabdiwali gudub asaguna magacaabo alxamdulillah waxaan si aad ugu mahad celineynaa oo ummadu in badan ay danaynaysaa in qof iyo cod iyo barnaamijkan uu ku dhiiraday madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani
in doorasho loo dareero qof kastana taasuu diyaar u yahay intiinaan cod baa maanta le shalay la idiima baahnayn laakiin intiinaan qof aan loo baahnayn kuma jirto berri waa la idiin baahan yahay 9 xisbi baa Puntland ka asaasantay ma la socotaa xisbiyada yaa 9 xisbi baa maanta ayaan ka asaasan oo xisbi ka mid yahay xisbiga aan maaragtay oo dawladdu leedahay oo ka 9ka xisbi degmada Jariiban xor bay u tahay kay galayso qof kastoo idin ka mid ah intaan 9ka ku ka galayo oo dantiisa uu ka arko buu galayaa mid uu calaamad oo la dhahayo xoog ku gal ma jirto xor baata degmada Jariiban xafiisi waa inay ka wada furtaan 9kaba inay ka furtaan weeye 9kuba inay dadka shaqaaleysiiyaan weeye shaqaalaha laga helayaa waxa la rabaa danta degmada Jariiban cidda wadaahi baa dantiina ah ya dantiina yaa ah ciddii dantiina waxa ah iyo ururkii markaas dantiina wada degmada Jariiban horumarinta isbitaal bay u baahan tahay waxay u baahan tahay iskuul waxay u baahan tahay shaqaaleyn bay u baahan tahay waayeel daryeelkiisa u baahan tahay wax walba ay leedahay xoolo dhaqato weeye dadku ya iskuulaadkii bay u baahan tahay macallimiintii tayentooda u baahan tahay wax walba ay u baahan tiin dhaqaatiir la idin keena u baahan tiin ciddii dantiina taa ka shaqeynaysa baa wadaysaan baa dooranaysaan taan ka dardaarmay maadaama aan humanitarian-kan ka shaqeeyo bulshooyin badan sida gudoomiyuhu sheegay waa isku dhex noolnahay ilaahay baan qof walba meesha ku beeray qof kastana qof ka fiican ma jirto laakiin waa la kala tabaroonyo inaan isku naxariisano inaan ku dagaalamo in gabadha Jariim gabar meesha ku aragtaan bari waxa dhici karta xisbi ay rabtaa ka socoto 9kaas meesha rabtaa ka socoto gabar reer Jariibana inay isa soo sharaxdo noocay rabta qabiilka rabta u dhalato qabiil ka mamnuuca iyo cid ka mamnuuca waxa shuruud ku haystaa waxa weeye aqoontii ma leedahay ma u dhalatay degmadaas shuruud ku haystaa taa weeye ma ka soo bixi kartaa hawshaas laana waa ahad la galaysid ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalinta golaha deegaanka waa kuwaan marka la dhaarinayo ama qof kastoo mas'uul la dhaarinayo ballantu ciduu la galayahay waa alla subxaanahu wa ta'ala maxaa lagu dhaartaa waxa lagu dhaartay maxay yihiin magaca ilaahay baa lagu dhahay kitaab baa gacanta saaray yaa balan la gashay Allah subxaanahu wa ta'ala wuu kugu la xisaabtamaya garabaynta aad wax garabaynaysid wanaaga wax ku wada Allah aad ajir kaga rabtaa hadaa xumaan sameeysin Allah kaga rabtaa jisadeeda ya waxa la rabaa marka meeshaad gabar ka aragtaan dardaarankaygu wuxuu yahay meeshii gabar iska soo degmadan Jariiban gabadhii iska soo sharaxdaa noocay rabtaa ha u dhalatee gabdhow inaad u codaysaan cidiina diwaan gelin tan kalena koow ina isdiwaan gelisaan qof kasta oo qaangaara gabar iyo wiil oday cid walba degmada Jariiban ka socda waa inuu isdiwaan geliyaa diwaan gelintii waa bilaabmaysa qolaha dhow reer hebel aniga isdiwaan gurgur meesha ayaa u badan Cabdi Ciise u badan anigu uma socdo ma taal cid kasta ee u dhalatay ee degmadaas xaq baa loogu leeyahay kala badinta iyo kala yareynta yaa bixiya Allah baa bixiya cidna ma dhihin hebel oo bado iyo hebel oo yaro ma dhihin laakiin maalinta ku dhalato dhulkaas xaq u yeelatay isna xaq kugu leeyahay inaad difaacdu leeyahay inaad dhowrtidu kugu leeyahay dhulkaas adna xaq waxa ugu leedahay inaad ka heshid wixii aad ula sinaatid dheeftiisa umada kale aad ula sinaatid gabar meesha markay soo istaagto oo gabdhaha Jariiban ay dhahaan gabadhii anigu waxaan u sharaxnaa xisbi hebel waxaan rabaa inaan maayir noqdo waxaan u sharaxnaa xisbi hebel waxaan rabaa inaan noqdo gudoomiye ku xigeen waxaan u sharaxnaa inaan noqdo gabar kasta tii soo istaagtaa ballanteenu sidii Soomaaliland inaysan ugu dhicin oo qorraxintiina ay dhamaantiina ay soo istaagtaan aan meela wadadiina ahaan amartaa walaalkay qar Allah si horta waa macallinkuna waa waalid saaminsan sax macallinku waa waalid uu kaaga ogaash maamuluhu anu maamulaan soo noqday macallinna waa soo noqday ma fahamteen waa kan xariis badan yahay kana ogaan maxaa loo yiri waalidka labaad waxa loo yiri macna meesha ku jira guriga ka soo deynaysa cunugaaga ma ogid wuxuu ku sugan yahay mas'uuliyadda 12 asaga haya asaga og waxa duu xanuunsan yahay asaga og haduu dhiban yahay asaga og waxa saaka ka adigu warkama haysid waa waalidkii labaad waxa marka idin leeyahay gabadh meeshay soo istaagto inay waxay gabadha marka meeshan soo istaagtahay ma dooran qabiil ma dooran
يا waxaan noqonays ilaah waa ku siiya darajada yaa bixiya Allah subhanahu wa ta'ala marka walaalayaalow balanteenu waxay tahay in horta aad isku dhexgal wanaagsan gabdhaha jiriiban oo isku duuban oo aan hayb lahayn inaad ku shaqaysaan mabda'aas inaad isku godin hebla inta joogta iyo hebla inta joogta inaydan isu waxeenin iyo meeshan waa laga yiriyaa waa laga badiyaa no ani idin la hadlayo qabiil kuma imaan inta aan bulshada gaalkacyo aan ama goolka mudug ilaahay khayr ha siiyo intooda wanaagsan waa u duceynayaa mar kasta dadku ma wada xuma in baa la wada in baa ka wada waxna ma aha bini aadam aragtida ilaahay baa bixiya laakiin gabadha muxuu ahaa gobolka u dhalatay rag iyo dumar waxa jira gabar kaliya ma rag dumarka ka fiican baa jira rag saaxiib ah jira wanaaga kula rabaa jira mar walba jecel in gabdhaha garab taagan baa jira intaasna waa walaalaha iyo Soomaalihan jazaakallahu khair ilaa noo badiyo gabadha laakiin la doortaaday macnaheeda ma aan markay kursiga gashay inay aamusto reerkeedii u danayso ama ayadu danaysata ma ahan waa inay dib u soo noqotaa waa inay ka turjuntaa baahidii meesha loo keenay meesha ay u timid ujeedadeeda gabadha aad dooranaysaan waa gabar aad ka fakarteen gabar ma tahayna ma dooranaysaan ogaada waxa leedihiin gabadhaani waa alxamdi wayna matali kartaa sababtoo taa waxa ognahay inay naga warqabto ya hadda aragtaan inay markeeda hore faa'iido leh ma dooranaysiin Soomaa Maryan sidoo kaleeto gabadha meesha aad keenaysaan oo codeynaysan waa inay noqotaa gabar adamaantiin wada aragteen leeyahay mid intay ku fiican tahay tan intay noogu fiican tahay leedihiin aad dooranaysaa gabadha kale soo sharaxaysaahina waa gabar shuruudi buuxin karta inay noqoto oo idin matali karta aqoonteedii leh meesha waa dhib badan tahay mas'uuliyadu ciyaar maaha qaadan karta doorkeeda waa inay noqotaa waxa kale waa inay isdawaam gelisaan 5 bishay bilaabanaysaa all Puntland oo dhan 5 bisha ka bilaabanaysaa Janaayo haduu Ilaahay idmo qofku Ilaahay gaarsiyo inaad dhamaantiin saqiir iyo kabiir ba fayl u soo gashaan inaad dawaamka gashaan jariiban baa la dhigayaa seejadu jariiban way taal garaacad way taal inta degmo way taal oo maleena 3 iyo 4 bay ka taala Soomaa ها intaas waa inta degan gabar jariiban degan garaacad ka celinaya horta waxaan gudoomiyaha iyo waxaan uga mahad celinayaa iyo farxiyo isku dubaridka iyo abaabulka iyo isku xirka bulshada dawladdu waxa ah horta dadka ah ee qof la magacaabay iyo kursigu ma ahan dawladdu waxa ah dadka marka inteenana dawlad ah waxaana xukuma gudoomiyaha inteenana inta naga maqan dawladdu waa intaas dawladdu kursiga iyo ma ahan waxa soo raaca sharciga iyo dukumiintiyada iyo waxyaalaha la kala dhaxlo oo systemka ah waxa waaye marka aad iyo aad baan uga mahad celinayaa alxamdulillah rabbil caalamiin mar walba waa ku taamahayay kulay aniga maskaxdeedii way ku jidhay in aan dadkan xaafadan si gooniya abaabul iyo isku xiraan ugu sameeyno laakiin ilaahay mahadi wixii qalbigayga ku jiray iyo waxa isla falgalay activity ay qabanayeen farxiyo iyo gudoomiyaha iyo aniga alxamdulillah rabbil caalamiin marka waa aad baan kugu soo dhaweynayaa waana ku mahadsantihiin isugu yeediyay Safiya gabdhaha soo booqdo dhan iyo dadweynaha meesha jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi salaanta muslimkan ku salaamaya waxa weeye annagu wixii aan oran lahayn ba hadda odayaasha yiri anaguna waan ka daba dhahayaa annagu waxaan rabnaa tuulada la sheegayo lagu caqday oo halka markay yacdaan biyaha laga waayay annaga in la ku qaabilo buurtayada hadii waxaan degmada ka codsanaynaa xaafadaas waxa ka jira ilaahay weynaa oo waahidka ah ka baahi tiri kara wax bilowaadan oo ka baahi tiri kara bijiraan waxa weeye baahi weyn baa ka jirta biyo la'aan baa ka jirta raashin la'aan baa ka jirta dhagaxlo waha ragaano ragii waanke maaragtay waxa weeye anigu waxaan joogi jiray Cabdirashiid baan soo joogay 70kii waan dhaafay waxaan soo joogay in siyaad bare dawladihii hore
waxa weeye dadka kan waa la gacan qaban jiray waxa lagu qaban jiray xoolaha dibadda inay daayaan baa shaqooyinka loo siin jiray xoolaha dibadda in laga nabadgasho baa loo siin jiray shaqooyinka ha oo kaad waa laga nabadgelin jiray oo ugaarta ha waa laga dibadgelin jiray saysa u ugaaran oo xoolaha dibadaha u layn oo waxa weeye baahi baa ku jira bita shaqaala loo yeeli jiray waxa weeye gudiga waxa laga siin jiray shaqooyinka wax laga siin jiray meel walba mid walba shaqa loo yeeli jiray say xoolaha dibadeedna u nabadgeliyaan degmadana wax uga cunaan oo shaqada wax uga helaan waxa weeye dadkaanu shaqo ma haysto waxa weeye dhagaxii mar walba waa la waayo dadka abaaraha dhaco dhagax waa la waana dhagaxle ha wax dhisanaya la waayay annagu waxa weeye been sheegmayo hal baraag baa biyo lagu shubaa hal maraa lagu dagaa dad baan toddobaad shaah karsan dad baan toddobaad casho helin masagada hadda waa lagu liibaanay waa la karsadaa wallaahi dad baa bariis ay ku dari lahaayeen waay oo sonkortay ku darsan lahaayeen waay oo saliidaan iyo masagadaana ilaahay nafta lagu soo gasho hadda waxa weeye dhibaatada aan qabno annagu nimanka dukaamada leh oo geelasha boqolka u daaqayaan oo Umar Maxamuud ma sha Allah Allah u siyaasay nabcada ay qabaan buurtaan laguma qabo hanna la ka daayo caqabadana la ku hayo hanna la ka daayo gacan hanna la ku siiyo dawladuhu hanagu aqaaleen waxa way gudoomiyaha iyo degmada iyo wasiirta iyo annagu inaan dhibaato weyn meeshan ku qabno inaan baahi ku qabno inaan biyo la'aan ku qabno buurtayada inaan lagu qabno baraagta maxamed oo meesha ku taala oo markaan yaacna aan dhibic biyo laga helayn oo yaaca haleen ku gacan qabtay ma yeelin waxa weeye waa aragteen oo kaaman bay leedahay degmooyinka islaamiga kan kayagi waa kan kayaha nagu qaabileen kan kayaha nagu yimaado degmada nala ka cesho wixii weerar nagu ah hadii hay'adu noo timaado noqoraysa waxaan ka baqaynaa halkaas hadaan kan kayaga hay'aduhu nagu qaabilaan in la ku weeraro aan nabadgelyo ku weyno waxa weeye waxaas waxna qabta ma dadka masaakiinta wala soo qubaynaya nin dhigtay oo dhargay oo dhigtay bakhaarkiisa u buuxo nin baqtiyayna ku ciyaaraya xaquuqdiisa ku seexanaya nama qabato assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh